وخير الناس أنفعهم للناس dadka waxa u khayr badan buu nebigu yidhi dadka waxa u khayr badan anfacuhum linnaas ka dadka ugu nafci badan ugu waxtar badan qofka mu'minka ahi meeshuu joogaba waa waxtar saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadkaba waxa ugu fiican qofka dadka ugu waxtarsan waxtarku iyo qofku waxa uu qabanayo oo la tilmaamayo inuu qofka muslimka ahi uu yahay dadoo dhan qof anfaca lama laha waa anfachum lilmu'miniin lama odhan xadiidka u fiirso wa anfachum linnaas baa la yidhi waa dadka qofka ugu waxtar badan isla xadiid labaadoo jaabir laga warinaya imaamu muslim soo saaray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyay man istaطaaca minkum an yanfaca akhaah falyafcal marka ay sheegeen cid wax dadka ku akhridaa inay jirto oo wax ku tufta ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man istaطaaca minkum an yanfac akhaah qofka idinka mid ee awooda walaalkii inuu wax taro falyafcal ha yeela buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam haddaba nafcigaasi nafci dunawiyana wuu noqon karaa nafci ukhrawiyana wuu noqon karaa qofka waxtarkiisu dadku inta badan waxtarka adduunyay jecel yihin laakiin waxaa ka mudan waxtarka aakhiro ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa bini aadamku dhammaantii inuu khasaare ku sugan yahay in alle soo reebay mooyaane wاlcasr ina اlinsaana lafii khusr ila اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw bالصabr rabu samaawaat baa dhaaranaya markuu dhaartay kadib ayaa ilaahay wuxuu leeyahay ina اlinsaana lafii khusr dad aayaddaa u fiirsato marka hore waa qasam iyo dhaar baa lagu bilaabay marka labaadna waa jumla ismiya marka saddexaadna inoo xarfu tawkiidaa lagu daray marka daba shanaadna maxaynu dhahnaa laan baa lagu daray intaasoo dhammi luga alcarabiya waa adawaatu tawkiid bay idhahdaan wax markaad rabto inaad adkayso oo senteniskaa sida ugu adag ee loo sheegi kara aad u sheegto ayaa ilaahay u sheegayaa subxaana wa tacaala ilaahay intuu dhaartay buu wuxuu leeyahay aadanuhu insaanka qofka la yidhaahdaa khasaaru ku sugan yihi wax kasta uu yahay yaa laga soo reebay waxaa laga soo reebay bes aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw bالصabr kuwa afar sifo laga helay iimaan laga helay camal wanaagsanna laga helay xaqana dardaarma sabirkana isu dardaarma xaq iyo sabirkaba isu dardaarmaya yacni waa qof diintana ku camal falay dadka kalena diinta gaadhsiinaya waxay yidhahdaan qofka daacigee dadka diinta ugu yeedha huwa anfacu nnaas aynamaa xal waa qofka waxtar ugu badan meel kasta uu joogaba maalan rususha iyo ambiyadu waa dadka koowaad ee bini aadamka xaqa ugu yeedha waa dadka koowaad ee isku daya dadka inay naar ka badbaadiyaan waa dadka koowaad ee dadka ugu yeedha inay janno u horseedaan sida awgeed iyagaa ugu anfac badan aakhiro iyo adduunba mabaadi dadka anfacaysay keenaan